madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ayaa ka tacsiyeeyay saraakiishii ku shahiiday xalay qaraxii ka dhacay degmada Waabari ee gobolka Banaadir. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi tiiraanyada u diray qoysaska qaraabada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ay ka geeriyoodeen saraakiil xigeenadii askartii iyo muwaadiniintii kale ee ku geeriyootay qaraxii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. madaxweynaha ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in isku duubnida iyo wadajirka si loogu guuleysto cadawga arxanlaawayaasha ee caadaystay gumaadka iyo waliba daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan ka tacsiyeenayaa geerida taliyihii booliska degmada Waabari Gaashaanle Axmed Sheekh Cabdullaahi Baashane, saraakiishii iyo askartii kale ee ciidamada booliska Soomaaliyeed ee ku shahiiday iyagoo ka shaqeynaya amniga dalkooda iyo dadkooda. dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha ammaanka waxaan ugu baaqayaa ayuu yiri madaxweynuhu in si wadajir ah ay iskaga kaashadaan ka hortagga dhagarta arxan darrada ah ee argagixisada Al-Shabaab.